بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أجلسنا وزارة الدكالها يكلميس يلا دجالك دكالها يلا دجالك بعد ثلاثة مديرين حياة الطبقات ودنيا المدح حفظ ودنيا كتبنا جميلا مدح مسؤولين سقوط المناسبات مدحضة UNODC كمان عن مستوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوشان halkaan aan ku hayno antivirus-ga burcad badeedu waxaan oran karaa musiibo Soomaaliya waa mid ugu weynay, waa mid ay sababtay qarankeennii iyo dawladdeennii markii ay burburay inay Soomaaliya baylaha noqotay oo badeennii iyo barigeennii iyo hawadeennii mid walba ciidankii badda Soomaaliyeed ilaalin jiray iyo ciidankii cirka Soomaaliyeed ilaalin jiray iyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee xuduudaha Soomaaliya ilaalin jiray markay burbureen in adduunkii u soo shaqo tagay Soomaaliya inay Soomaaliya noqoto badda adduunka ugu boobka badan. Taasu inay dhalisay in markii dadkii kalluumaysatada ahaa iyo dadkii waddanka lahaa markay u adkaysan waayeen waxa inay iyaguna kudka guur oo qajo guur ay noqotay. musiibadaas oo ilaa iyo 7 sano taqriiban hadda muddo laga joogo kumanaan dhalinyaro ah oo dhalinyaradii dalka aan ficil ahayn, kuwii madaxda noqon lahaa, kuwii aqoon-yahanada noqon lahaa, kuwii siyaasiyiinta noqon lahaa, kuwii saraakiisha noqon lahaa, kumanaan ay ku nafwaayeen, kumanaan ay ku naafoobeen, kumanaan ay xabsiyada ugu jiraan, kumanaan ay cudurro aan daawo lahayn ay ugu dhaceen. waxaan oran karnaa musiibadaas waxaa noo geystay caalamka ayaa noo geystay. waxaa loo soo shaqo tagay baddayadii iyadoo dhinacyo badan loogu soo shaqo tagay, iyadoo mar sunta wasaqda kiimikada lagu aasayo lagu daadinayo, iyadoo kalluunkeedii iyo khayraadkeedii lala baxay, iyadoo wax walba oo dembiya lagu samaynayo. waxaa ugu yar baan oran karnaa kuwa ugu waaweynna ka mid a maraakiibta naadka ee badda ilaalinaysa markabka 200 oo askari ay saaran tahay. 200 oo askari waxaa la wixii ay wasaq lahaayeen saxaradoodii iyo qashinkoodii iyo cuntadoodii hadhay badday ku daadinayeen. bay'adii iyo deegaankii baddeen waa ay ururtay inta ayna tarayaan inta ay loo geysanayeen ayaa ka weynay. caalamku ku tilmaamay burcad badeedan waxaynu kala qabanaynaa kumanaanka xirxiran iyo kumanaanka cudurrada ku dhaceen iyo kumanaanka waxa weeyaan shaqo la'aanta ku dhacday. maxay qorshaha u sameeyeen? waa baahi deegaanku uu qirayo in waxa meesha ka dhacay wax muqaabilo oo ka dhacay aysan jirin. gobolkeena mudug waa meeshii ugu dambeysay February 2002 hadda ducaysane iyo ragga ay nagala mid ahaayeen howlgal aad filimka hadda soo socda ku arki doontaan wasiirkii Siciid Maxamed Raage, wasiir ku-xigeenkii Cali Yuusuf Cali Xoosh iyo dadkii deegaanka oo isimada uu hogaaminayay Garaad Maxamed Cilmi Shirwac iyo bulshadii deegaanka oo dhan oo isku duuban caalamka loo xaqiijiyey in Garacad ay noqotay bartii ugu dambeysay ee burcad badeeda laga sifeeyey. runtii waxaa u baahan marka in la isweydiiyo kumanaankii dhalinyarada ahaa ee hawshaa galay markii ay ka soo noqdeen xagee bay ku dambeeyeen. 2 tusaale aan idin siinaya. waxaan tagay magaalada Reekoomane, waxaan u tagay rag nin dhalinyaro ah baan arkay hortayda soo maray. ninkaa waa dhalinyaradii burcad badeeda noqotay, dhaawacyo ay ku gaareen oo caloosha xabada uga dhaceen, dalka dibaddiisa ehelkiisu qaaday ku soo dhaweeyey, wixii ka baxay oo dartay galowsaday. markuu ka baxayna waxa ay noqotay inuu noloshiisii si xalaal ah u raadsado. waxa uu wataa ninkaasu dameer uu kiraystay iyo kareeto uu kiraystay ayuu biyo ku dhaamiyaa. markuu kareetada kiradeedii iska bixiyo, dameerkii kiradiisiina iska bixiyo, inta u soo hadha ayuu ciyaalka ku biishaa. muxuu mudan yahay ninkaas marka? hadduu naartii jahannamo ka soo baxay, dhibaatadii hadduu ka soo noqday, xaq ma u lahaa in la daryeelo, xaq ma u lahaa in la jiheeyo, xaq ma u lahaa in noloshiisa la daryeelo oo mustaqbalkiisa lagala shaqeeyo. sidoo kale kormeer aan dhawaan ku tagnay degmada Jariiban, dugsiga hoose dhexe ee Jariiban ayaanu booqanay. waxaan u abaalgud ku siinay wiil dhalinyaro ah oo fasalka 8aad dhiganaya. wiilka hooyadiisna waa dhimatay, aabihiisna waa dhintay. burcad badeed buu noqday, noloshii buu ka baxay, waa ka soo noqday intaasoo sano oo waxbarashadii oo ka khasaadhay ah isagoo cid noloshiisu ku tirsan tahay aan la arag oo magaaladaana derbi ugu nool ayuu halkaa buuggiisa iyo qalamkiisa qaatay. fasalka 8aad ayuu dhiganayaa. wax u maqan waxbarashadiisa ma laha, wax noloshiisa daryeelayaan ma laha. haddii aanu tirino dhibaatooyinka haysata dhalinyarada iyo horkutaalooyinka ay ku reebtay burcad badeedu iyo daryeel la'aanta ay la kulmeen wax la koobi kara maaha. waxaanu nahay uban dhacday, waanuna kacaynaa haddii alla idmo. nin walba wuxuu noo geystay waxaa rabaa inaynu meel ku qorno saynu ugala xisaabtami lahay.
waxaan kala u baahannahay annagu hadday wasaaradda dowladda ahaan lahayd iyo hadday UN-ka ahaan lahayd iyo hadday ciddii kale ee caalamka magaca burcadbadeed sheegtaba ay ahaan lahayd ummaddu waxay u baahan tahay kumanaankaas ummadda ah oo dhibaatadu gaadhay ummaddaas sidii wax loogu bedeli lahaa dhibaatadii iyo dhaawacyadii gabdhihii kumanaanka ah ee kufsiga loo geystay haddaan caafimaadkoodii la daryeelin haddaan mooralkoodii loo dhibaateeyey la daryeelin haddaan dhallinyaradii intaas iskuullada ka tagtay kuwii shaqooyinka ka tegey kuwii ciidamada ka tegey haddaan laga fekerin sidee loo daryeelaayo wax loogu qabtaa waxaa imaanaysa wax badan waxaan u baahannahay marka annagu hadda gobolkan waxaa ka socda mashruuc dadku ay ku wadaan iskaa wax u qabsaa oo sidii la isugu xiri lahaa xuduudda Itoobiya oo degmada Galdogob iyo magaalada xeebta ee Garacad sidii wadadeeda loo hagaajin lahaa iyadoo ay dadku ku tashadeen in ay xoolaha xerada ugu jira iyo dhaqaalaha ay haystaan isugu geeyaan taasoo haldhig u yahay wanbixi aan wadada dhisnay waxaan leenahay waxay u baahan tahay antivirus-ga waxa la sheegay waxa nooga qiimo badan wadadaas in la isku xiro oo Gaalkacyo Galdogob ilaa iyo Garacad kalluunka laga soo saaro dhallinyaradii burcadbadeeda noqotay inay kalluunkoodii u helaan suuq ilaa Gaalkacyo ilaa Galdogob ilaa inta ku xeerana ay kalluunkoodii u suuq geeyaan inay si fudud wadada ku soo mari karaan in ciidamada nabadgelyadu ay haddii meesha wax ka dhacaan ay si degdeg ah ku tegi karaan udub dhaxaad inay wax qabadka ugu muhiimsan tahay sidii wadadaas loo dhisay sidoo kale ay dhallinyarada joogto oo burcadbadeeda ka baxday oo meeshii ugu horreeyay inay xaq u leeyihiin kalluunka ay iska ag fadhiyaan inay inta ka soo saaraan ilaa iyo Garowe ilaa iyo Laascaano inay u eedgeeyaan in wadada isku xidha Garowe iyo ay iyadana si fudud loo dhiso si ciidamada nabadgelyada ee booliska Garowe jooga haddii ay wax kulada amni darro ay uga dareemaan markiiba ay u tagaan sidoo kale dad dhallinyarada kalluumaysatada ahaa ee Soomaaliyeed ee kumanaanka ee magaalada Bandarbayla ku sugan waxay xaq u leeyihiin in loo hagaajiyo wadada Bandarbayla iyo magaalada Qarna isku xidha si ay Qarna iyo Soonaheeda iyo intaas kalluunka ay badda uga soo saaraan ay suuq iyo iibgeyn ugu helaan si ciidamada nabadgelyadu ay si degdeg ah haddii ay wax ka dhacaan ay u gaari karaan waxaa kaabayaasha nolosha ugu muhiimsan in la isku xiro magaalooyinka xeebaha ah iyo magaalooyinka bariga waa waxaan ugu baahi badannahay laakiin in kumanaan dollar lagu khasaariyo shirar ama dibadda lagu qabto ama gudaha lagu qabto oo burcadbadeeda Soomaalida la yiraahdo burcadbadeeda Soomaalidu naatana ma aysan baabiin adduunkuna ma uusan baabiin dhibaatadii adduunku noo geysatay sidii bay meel noogu taallaa waxaana laga yaabaa in badan oo ka mid ah inay sidii u taallo waxaan tegay xeebta waxaan ugu tegay maraakiibtu olyadii ay iska bedelaysay meeshii la rabay inay meel ku kaysato meel kale iskaga daadiso inay badda inta ku daadiyaan boqolaal fuusto oo olyaha madoobaatay malaayiin xayawaankii badda ku noolaa ahaa oo kalluunkii ahaa oo khayraadkii ahaa oo dhintayna inay xeebaha ka soo caariyayaan maraakiibta waxaa laga yaabaa inay u joogaan Soomaaliyaanu daryeelaynaa Soomaaliya burcadbadeeda ka ilaalinaynaa war maxay inay ilaaliyeen hadday malaayiin khayraadkeennii asaas u baabiinayaan hadday baddeennii beeyadeedii iyo deegaankeedii wasakheeyeen waxaan u baahannahay inaynu caqliga inta ka shaqaysiino dhibaatadii inay ku hagsatay ee burcadbadeeda ahaa innagaa garannay inay dhibaatayna ku tahay innagaa iska qabannay innagaa ka hortagnay innagaa baabiinay innagoo u mahadcelinayna cid alla ciddii gacan ka geysatay nin walbana wuxuu noo qabtiyo wuxuu noo geysto nin waliba qalad wuxuu noo geliyo wuxuu noo geysto diiwaano qaran baa jiro loogu qorayahay diiwaanka taariikhdaa qoraya ninkii waxa weeye intaan dhibaatadaa ku jirnay wax inoo geystay iyo ninkii waxna yeelay waxaynu u baahannahay dhibaatada diifteedii weli waa ina haysaaye sidii aynu caqliga uga shaqaysiin lahayn oo aynu talooyinkii aynu ku aragnay dhibaatada oo aynu isaga qabannay oo aynu u samata bixinay dhallinyaradeenni inaynu ku tashanno sidii aynu qorshe ugu samayn lahayn sidii waxaas iyo wax la mid ah aysan dib dambe inoo ku soo noqon kumanaanka ina ka xiran xuquuqdooda sidii loo heli lahaa kuwa dalka ku xiran siday waxbarasho iyo caafimaad u heli lahaayeen kuwa dibadda ku jiraana sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad iyo daryeel waxbarasho iyadoo ducaysana uu xogogaal badanna u yahay dalal badan oo adduunkaana uu kuwa ka soo kaxeeyey oo uu dalka u soo wareejiyey kuwa badanna xaaladooda uu ka warqabo laakiin fariintu inay shacabka ka timaado kumanaanka wiilasheena ee adduunka daafihiisa ku xirxiran maxay ugu xiran yihiin maxay xaq u leeyihiin haddii la soo daayo maxaynu u haynaa oo qorshaa maxaynu tala ah u haynaa inaynu ogaano waxyaabaha meel walba waxa weeye waxa dhibaatada ku haya waxa weeye hadda shalay waxaanu joognay control sharci darraa isbaara oo laanta dusmada agteeda la dhigtay waxa dhigtay waa dhallinyaradii burcadbadeeda ka timid haddii dhallinyaradaas la jihayn lahaa haddii waxbarasho loo furi lahaa haddii beera lagu jihayn lahaa haddii xoolo dhaqasho lagu jihayn lahaa haddii wax kale lagu jihayn lahaa haddii noloshooda dib loo dhisi lahaa isbaara ma ay dhigteen
عنوبة عنها وآفائنا كل حجنا ولي إن آفائنا سيدي أن وقع شامل لهين سين وحقق قبل لهين سين وحقق بدل لهين مسكح لنا إنتين مشيرنا خلاص يقشوا صار وقال له هوي أيها نوت الله مصيبة إنه كسر بحري مرحلة حكته وسيدة إنه قدر يجي لهين سيدة إنه قشوا قصبين لهين إن يسن مرضى مدن يرد هذا برعد بدل نكون نقول فكر نكون نقول لكن سيدي لو جهين لها سيدي وحلاط لها سيدي لو قصبين لها نرول أيكون نرادان كان جرن سيدي لو دوين لها كان نافوي سيدي نافن نبي سوى حلاط لها كان حرس سيدي حقوق سيدي لو راد لها سيدي حريته لها عافيماته لها وحبرشوه لها انت أنا وأنت تطلع من والرجل يدمر بيسكون جرا وحين هو بهناي إننا إلاون لبعضهم عبارات بدأت من الصوم مرسي إننا حسوسنا بتاعي الصوم مرسي إننا صارنا كلوين محكوارة ومستقبل غير أنه مقتشنا إنه لبعض الأسرات كأي سينو ترتر الهين يسينو قشوا بسمين الهين لأن يراد أن كمانكم كهاي باش عن عبارات بدأت أس كشيء فلاس إلهي وحنقوم هالعلنينا إن كرنسيي إن لبعضهم قطعي إنكار dhibaatooyinka ay iyadu sababtay oo hadda wali sii jira waxa weeye waxaan u baahanay iyada laftigeeda inaynu iska weydiino maraakiibta manaanka ah ee badeena sida sharci darrada uga soo kalluumaysanayo oo maalin walba la soo qabanayo kuwa sidoo kale iyaguna ciidamada ah oo jooga iyo sida ay ku joogaan ma waxtarkooda badan mise waxyeeladooda badan inaynu iyada laftigeeda isweydiino ma waxaynu sugaynaa in wax la inoo qabto oo burcadbadeedka dhallinyaradeenna noqoto iyo saynu wax uga qaban lahayn dad kale un baynu wax ka sugaynaa mise innaguna wax waa qabsan karnaa wax la imaan karnaa haddaynaan innagu wax qabsan runtii wax la inoo qabto kuma baahi bixi karno waxaa lagama maarmaana inaynu innagu qorshe iyo talo iyo tabarba waxaynu haynu isu geyno oo saynu musiibadaas wax uga qaban lahayn aynu wax iska weydiino aad iyo aad baa umahadsantihiin hadalka waa idinku dheereeyey shirkuna waa inoo furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi